mudane adeer marweyn marka hore waxaan halkan uga mahad ballaaran uga soo jeedinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo soo qaban qaabisay kulankan aad iyo aad muhiimadda u leh waxtarkana u leh sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay'adaha dawliga iyo mas'uuliyintooda heerarka kala duwan leh iyo guud ahaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay furitaankan mahad celin kadib waxaa farxad weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan muhiimku ah ee lagu daahfurayo dib u eegista iyo qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda. Tani waxa ay qayb weyn ka tahay habeynta ballaaran ee ku socota dhisidda maamul wanaagga iyo hufnaanta hay'adaha dawliga ah haddii ay ahaan lahayd dhinaca maamulka hay'adaha dawliga ah shaqaalaha rayidka iyo dhinaca maamulka maaliyaddaba intaba. In dowladda iyo dalku lahaadaan nidaamyo iyo hufnaan iyo hanaan hufnaan oo siyaasado iyo shuruuc ku shaqeynaya waxay ka mid tahay dowlad wanaagga taas oo inoo horseedaysa in dalkeennu uu sameeyo horumar baaxad leh haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ah ku ammaanayaa kaalintii baaxadda leh ee ay kana qaateen dib u habeynta hanaanka maamul wanaagga maaliyadda iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda iyagoo wada shaqayn buuxda ka helaya dhammaan hay'adaha dawliga ah ee taageero ka helaya hay'adaha caalamiga sida bangiga adduunka iyo qaramada midoobay iyo dalalka kale ee Soomaaliya gacanta ku siiya kasoo kabashada caqabadaha soo qabsada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay hirgeliso siyaasadda iyo shuruucda laga maarmaan ku ah dib u habeynta qaab dhismeedka hay'adaha dowladda shaqaalaha rayidka iyo hanaanka maaliyadda si loo helo hay'ado leh qaab dhismeed degan waajibaadyo darajooyin iyo shaqooyin qeexan leh. waad la socotaan inta badan shaqaalaha xafiisyada nagala shaqeeyo iyo isla hay'adaha aan ka shaqeynaba badanaa ma haystaan job description ama hawl qeexyo ku qoran waxa ay qabanayaan iyo cidda kale xisaabtamaysa iyagana cidda mas'uulka ka yihiin iyagaba cidda mas'uulka ka ah. talabaad shaqaale leh hanaan hufan oo ay ka soo galaan kagana baxaan shaqada hay'adaha dowladda. waad la socotaan hadda xafiiska aan joogay xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqaale badan ayaa ka shaqeeya marka runta idin sheego shaqaalahaas qaar waa maqan yihiin qaar way joogaan qaar way ka tageen weli ma qeexna kuwa jooga kuwa ka tagay kuwa shaqeeyo marka waa in la helaa hanaan lagu ogaan karo shaqaalahaasi waxa ay qabtaan halka ay jiraan kuwa jooga kuwa shaqada wanaagsan qabta iyo kuwa maqanba. midda saddexaad oo loo baahan yahay waa hufnaanta nidaam maamul maaliyadeed oo dhammaan hay'adaha dowladda ay wada leeyihiin. ugu dambeyntii waxaan dhammaan hay'adaha dowladda ugu boorinayaa in lagala qayb qaato gacanna lagu siiyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka arrimaha la xiriira dib u habeynta maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda. waxaa intaa ii dheer oodna ogtihiin xafiis kastoo aad tagtid waxaa ku qoran la taliyayaal ama consultant kana mushaar badan shaqaalaha rayidka ah. waa wanaagsan tahay in la qaato dad khibrad u leh la taliyayaal wanaagsan consultant ah laakiin haddana waa in la tixgeliyaa shaqaalaheena ma laga dhex helayaa shaqaalaha rayidka mayaa laga helayaa dad khibraddaas leh waa laga helayaa. waxaan ka soo jeedaa background hay'ad shaqaale dadka consultantiga aan u qaadano runtii subaxii waqtiga loogu talagalay ay yimaadaan shaqada waqtigii loogu talagalana way baxaan 8 saacadood oo full ah laakiin waxaa moodaa hay'adaheena wasaaradaheena xafiisyada dowladda consultantka ku qoran oo ay siiyaan hay'adaha caalamiga ah waqtigay rabaan ay yimaadaan marka waa in lala yimaadaa isla xisaabtan sax ah. waddankan shaqo badan ayaa u taallo shaqaale badan ayuu u baahan yahay waxqabasho badan ayuu u baahan yahay si looga gudbo heerka aan maanta joogno loona gudbo heer wanaagsan. waxaana looga gudbi karaa in qofka Soomaaliga ah uu shaqeeyo ugu yaraan 8 saacad ama wixii ka badan laakiin ma u dul qaadan karno mana ka yeelayno in shaqaale iska maqan ama shaqaale waqti yar 2 saacadood 3 saacadood subaxii duhurka yimaada iyagoo barfuunkooda leh saacad kadibna iyagoo carfaya ay shaqada ka tagaan ma yeelayno dalkan kuma hormarayo. marka waa mahadsantihiin hadal yar iyo hawl badan wabillahi tawfiiq.